waxaa jira kumanaan dhalinyaro ah oo habeenii maalin baranaya xirfado kala duwan laakiin nasiib darro xirfadaha iyagun baa lacag geliya ee xirfadaha lacag kama sameeyaan xirfadaha aan barano waa ilo muhiim ah oo lagu horumarin karo nolosheena laakiin xirfadahaas ma noqon karaan kuwo waxtar leh haddii aan si sax ah loo adeegsan maanta waxaan ka hadlaynaa saad xirfadaada ugu rogi lahayd il dhaqaale oo joogto ah gaar ahaan adigoo gurigaaga ku shaqaynaya qodobadan waxa ay kuu sheegi doonaan talooyin iyo istaraatiijiyado kaa caawinaya inaad guul ka gaarto xirfadahaaga xirfadaadu waxay kaa caawinaysaa inaad lacag ka samayso si joogto ah ama aad hesho il kale oo dakhli ah haddii aad si habboon u qorshayso oo aad u shaqayso waxaad awood u leedahay inaad noloshaada dhaqaale beddesho marka ugu horreysa waa inaad si fiican u fahantaa waxaad ku fiican tahay xirfadaadu ma tahay mid ku saabsan farsamada gacanta hal abuurka tiknoolajiyadda ama adeegyada bulshada fahanka saxda ah ee waxaad qaban karto waa tallaabada guusha xirfadda intaan lagu shaqo tegin waxaa loo baahan yahay inaad hormariso si ay u noqon karto mid lagu shaqaysan karo waxaad u baahan tahay si aad u hormariso xirfadaada saddexdan tallaabo ku xeel dheero xirfadaada xirfad kasta waxay u baahan tahay inaad si joogto ah ugu dadaasho oo si fiican ugu sii talax tagto tababar joogto ah iyo horumarinta xirfaddu waxa ay ku siinayaan fursado cajiib ah raadi fursado cusub isku day inaad ka faa'iidaysato koorsooyinka tababarka iyo buugaagta ku saabsan xirfadaha haddii aad si joogto ah u raadiso aqoon cusub waxaad noqonaysaa qof had iyo jeer la jaan qaadi kara isbeddelada suuqa haddii aad heli karto khubaro ama dad ku xeel dheer xirfadaha la tasho oo ka faa'iidayso waayo aragtinimadooda tani waxay kaa caawinaysaa inaad ka fogaato khaladaadka caadiga ah ee ku dhacaan dadka bilowga ah sida lacagta loogu sameeyo xirfadahaaga saad xirfadahaaga lacag ugu samayso raac tallaabooyinkan soo socda samee muuqaalo muuqda saad u samayso muuqaalo la taaban karo marka hore waa inay dadku ogaadaan xirfadda aad qaban karto si ay kuugu dirsadaan xirfadda aad taqaano marka ugu horreysa waa inaad samaysato portfolio adigu gaar ah ama meel aad ku soo bandhigto waxyaabaha aad qabatay si ay halkaas macaamiil kaaga soo raacaan waxa ugu caansan portfoliyada ama meelaha lagu soo bandhigo xirfadaha Upwork ama freelancer laakiin inagu waxaan joognaa Soomaaliya waxaad adeegsan kartaa social media sida TikTok, Instagram, Facebook iyo Twitter si aad xayeysiin ugu samayso xirfadahaaga haddaad taqaano xirfadda editing-ka oonad haysan muuqaalada aad edit-garee muuqaalada dadka kale kadibna u samee before iyo after oo soo dhig social media laakiin haddaanad garanayn xirfadda video editing-ka fadlan ha warwari saaxiib waxa aan kuu diyaariyey course dhammaystiran oo ku baran karto video editing-ka welibana adigoo adeegsanaya taleefankaaga u samee qiimo macquul ah markaad hesho macaamiishaada ha iska erin oo qiimaha kor ha ugu dalicin marka hore qiimahaaga waa inaad ka dhigtaa mid macquul ah laakiin mar walba ka taxadir in qiimo jaban aad ku kasbato kalsoonida macaamiisha marka aad sumcad fiican yeelato waxaad kor u qaadi kartaa qiimahaaga si aad ula jaan qaado adeegyada aad bixinayso istaraatiijiyada guulaystay siduu u noqdo mashruucaagu mid guulaysta raac istaraatiijiyadahan bixi adeeg tayo sare leh tayada shaygu waxa ay ku siin kartaa sumcad waa haddii aad bixiso adeeg tayo sare leh macaamiishaaduna way kugu soo laaban doonaan oo mar labaad ay ka adeegan doonaan la soco suuqa fahan isbeddelada suuqa si aad ula jaan qaado baahida macaamiishaada isbeddelada cusubi waa fursad lagu hormariyo xirfadahaaga oo lagu soo jiito macaamiil cusub dhis xiriir waara la xiriir macaamiishaada si joogto ah oo ku dadaal inaad ka dhigato kuwo ku qanacsan xiriirka aad samayseen xiriirka wanaagsani waxa uu kuu horseedi karaa fursado cusub iyo tixraacyo qiimo leh inaad xirfadaada lacag ka samayso waxay u baahan tahay inaad isku xidho dadaal hal abuur iyo xirfadda suuqgeynta marka aad si sax u maamusho xirfadaada waxa aad ka dhigan kartaa mid ku siisa xorriyad dhaqaale iyo mid shaqo waa muhiim inaad naftaada ku kalsoonaato oo aad bilowdo wax kasta oo qaban karto maanta ha ilaawin inaad bilowdo maanta barashada xirfad cusub xirfadahaagu waa hanti weyn waxaanad heli kartaa fursado badan haddii aad si sax ah uga faa'iidaysato ka hor intaanad bilaabin samee qorshe cad oo kuu tilmaamaya jidka guushaaduna waxay ku jirtaa gacantaada waa sida iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh